tahay fanaanada naqaaliga badan shabi waxaan ku soo dhaxjiri doonaa duwalaha awood leeyahay ka noqdo dhankii duwalaha awood leeyahay ka noqdo waxaan gaarnay xilligii aynu live ka soo arkaynay iyo Chicago iyo Toronto iyo London Melbourne Australia dhammaan dadka waxaan ka codsanaynaa duwalaha awood leeyahay ka noqdo dhaafada markay laabato si population keenu aynu soo wada aragno kulley fadhiga waa lagu qaban doonaa laakiin dhaafadaasaan ku salaami doonaa dowladdeegaanka iyo madaxda maaragtay madasha fadhida waxaa hadda TV-ga ku jira oo toos ah khudbadihii iyo ciyaarihii fanaaniinta dowladdeegaanka dhammaan oo live uga socda howlka weyne Sayid Maxamed Cabdilla Xasan innaguna hadduu alla awood raalli ka noqdo waxaynu halkan ka bilaabi doonaa dhaantadii iyo abwaan kaldheer ودور كجا الكودي جدل كودي دان الله الكودي جدل كودي دان الله عمي ماله وندركي زرابي كودي دان الله وندركي زرابي كودي دان الله سنا دلكي وبطولي مرين قوتي دان الله وبطولي مرين قوتي دان الله حتى الله ما دروا وحب الله ما دروا نبكي دوني يوم انت وحابيات صوتك الله ما دروا وحب الله ما دروا نبكي دوني وهم انت وعاديات هيا صعب قال لي سيه كمان جايز صعب قهوه هيا ساسا ربع هيا وحب الله ما دري نبكي دوني يوم انت وحاديات وحب الله ما دري نبكي دوني يوم انت وحاديات
joogeen welina ay ku sugan yihiin ka waran barnaamijka caawa si fiican buu socdaa munaasabadda gimbood haya munaasabadda xilaatanad xuska gimbood haya oo ah maalintii waddanka Itoobiya laga tuuray taliskii dhiigyacabka ahaa ee shacabka gumaysan jiray ee shucuubta Itoobiya u dhalatay isbeddelka dimuqraadiyadeed cadaaladed ee qoomiyad waliba xaqeeda yahay ayada ay ka tashatay shacabka ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku dhaqan Minnesota iyo nawaaxigeeda oo caawa u soo jeeda waqti waliba aad xilli dambe u ah waxay u hambalyeynayaan dhammaan shucuubta Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay maanta si toos shacabkan halkan joogay taariikhda reer Minnesota xafladan aadka u quruxda badan way u soo qabanqaabiyeen ururka dhalinyarada Sidiyo waxay farxadda kula qaybsanayaan shacabka deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga oo si toos ah annana halkan uga daawanayno howlka sayidka xafladda ka socota iyo jaaliyadaha kale ee ku dhaqan qaaradaha kale adduunka waxaan mar labaad leenahay hambaliyo bagaad nabad ugu gaadheen gimbood haya dhinacii heesaha iyo fanka waxaa inala jooga fanaan aad u daayar dhinacii daantada bal aan idinku wareejiyo dalka وقضايا داير يوسف واكا يا عساقة ويا عقمدية دنعي دانتلا يجي سيتا صعب قوي
هاي فنانك دالير سيدا ujeedad wariye xagmadhiga caaway dadka ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis si aad ayay u faraxsan yihiin iyagoo shucuurtooda ay ka muuqato inay u dabaaldegaan sanad guuradii ka soo wareegatay ee 20aad dadka iminka 23aad ee ka soo wareegatay magacayga waxaa la yiraahdaa Ibrahim Carab Quriye caawa shucuurtayda aad ayay u kaxsan tahay maadaama aan ku jirno xafladii Gimbood haya 23 sanad guuradii ka soo wareegtay aad iyo aad ayaan halkan waxaan ugu faraxsanahay inaanu ka soo qayb galno oo la wadaagno dhammaan adduunka oo dhan xafladan sanad guurada 23 Gimbood haya aad ma santahay balkaraadka mudanayaal iyo marwooy dhammaan shucuubta Itoobiya meel kasta ay joogto waxaanu leenahay hambalyo ciid wanaagsan anagana ciid bay noo tahay idinkana ciid bay idin tahay dhammaantiin ayaan idinku wada hambalyeynaa anigoo ku hadlaya codka jaaliyadda Sankalood foosiyo dadka sida aadka u soo qabaqaabiyay waxaa ka mid ah gabadha foosiyo maxaad dareemaysaa caaw farxad aad u weyn gambood haya happy gambood haya happy waxaan caawa u dareemaynaa farxad wadaninimo runtii aad baan ugu faraxsanahay TV-ga aan live uga maanta laga daawanayo waxaan u dhiibayaa calan oo aad iyo aad isaguna hawlaan waxaan aad halkan uga salaamayaa dhammaan shucuubta dowlad deegaanka oo dhan soo leeyihiin annagoo ugu mahadcelinayna telefishinka caalamiga ee Universal maadaama uu hadno la xiriiriyay annaga iyo deegaankanagi halkan waxaan ka salaameynaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar dhinaca gabdhaha ayaan aadaynaa hodan maxaad dareemaysaa caaw bismillaahi raxmaani raxiim farxaddeeda maanta ma la soo koobi karo waxaan leeyahay hambalyo aad baa umahadsantihiin haddaan dib aan ugu celiyo wariye xagmadhiga barnaamijkeeni live-ka ahaa xagmadhiga waa Sakariya Aadan oo si toos ah uga soo warinaya gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis waxaan leeyahay Universal TV qaybteedii hadda London ayaan dib ugu celinayaa waxaan ku wareejinayaa DJ Jelani والله فات لايف يا لايف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعوبتا إثيوبيا قارهان دولة دقانك إثيوبيا مدحوينها دأذير مضنع مع دكتور عبد محمد عمر هي كم نيتكي ساعات أيام وفر حصلنا هاي هالكن أيام وإذا كنت بلتقينا أنا وأوتاجن هل يا حبيب حتى نحل حمر الصوب وحالنا هاي جيمبول هايا همبليو جيمبول هايا همبليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الله إن شاء الله مدحوين وسلامات هاي بقولكم بقول معكم سلامينا فرينتي واد قد السن بلاتي أقاضي واحد حريصة ودكتي حديد بايالنك أنا أدي أتسمى ودك حرونك وشرف يا كرامنا وماشي كمان دورنا جدي هذا ما مرتب بشي هي وسع والله يفات ساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها دولة ديغان Soomaalida Itoobiya ayaa salaama haya kamaneed kiisa madaxweyne waa ku salaamay waa Maxamed Cabdullaahi fariinta isku waad gudbisay waxna waad qabatay annaguna ku garab taaganahay taagii baan leenahay halkan waxaan ka salaamayaa magacayga waa Roodi madaxweynahayga qaaliga ah
madaxweyne aad iyo aad baad mahadsantahay horumarka iyo maaragtay munaasabaadkii ammaanka xagga ammaanka aad iyo aad baan ku ammaanaynaa hawshaada halkaa ka wada thank you بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول الله يا مقع دقيقة فاربول وحن آب السلام أرورك السديو لانت فاربول وحن آب السلام يا دمان دولة ديغان كسومالي إثيوبيا هي دمان إثيوبيا قبيلة إثيوبيا هيا قبول dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed madaxweynaha anoo aan qayb gelin oo maxaan ku dhahday inay maanta ka qayb galayay sad xafada uga qayb gasheen halka maalin idinka hadlayna salaadna oo dhammaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya anigoo ku hadlaya magaca ururka dhalinyarada